maalinta jimcaha ah ee soo aadan muslimiinta dunida waxa ay u dabaaldegayaan munaasabadda ciidul adxa welina waxaa dunida faraba'an ku haya xanuunka covid-19 oo isagu xadiday dhaqdhaqaaqii iyo isu socodkii dadka soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ayaa iyagana waxa ay isku diyaarinayaan munaasabadaasi iyadoo dhaqdhaqaaq xoogan laga dareemayo suuqyada Soomaalida ee magaalada Minneapolis gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa dhawaan soo saaray sharci ah in qof kasta oo gelaya goob ganacsi amaba tegaya dhulka ay dadku isugu yimaadaan uu afka xirto haddaba wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa haatan ku sugan afaafta hore ee suuqa Karameel ee Soomaalida ee magaalada Minneapolis Maxamuud marka hore ku soo dhawow idaacadda VOA waa dhawahay Jacfar waayahay Soomaalida suuqa Karameel ku sugan sidee bay isugu diyaarinayaan munaasabadda ciida aad iyo aad Jacfar aad iyo aad bay dadka Soomaalidu aad moodaa munaasabadan ciida inay u diyaar garoobayaan iyadoo sida aad la socoto cudurka COVID-19 xanibaadiisii haatan laga baxay oo adeegyadii ganacsiga iyo goobihii ay furan yihiin marka Soomaalida suuqa Karameel iyagoo mask u xiran yahay oo afdaboolku u xiran yahay ayay suuqa ka adeeganayaan sidaad ogtahayna gobolka Minnesota gudoomiyaha gobolku waxa uu 25 bishan July soo rogay amar ah qof kasta oo gelaya meel daboolan ama gudaha ama ganacsi ama maqaayad iyo wixii la mid ah ama guri dadku ay degan yihiin in qofkaasi uu afka daboosho marka suuqan Karameel oo Soomaalidu aad ugu fara badan yihiin dadka ka ganacsanaya ee u adeeganaya munaasabadda ciida waxaan inta aan gudaha ku jiraan maqlay iyadoo maamulka suuqu ay codbaahiyaasha dadka kala hadlayeen una sheegayeen qofkii aan xirnayn afdaboolka in meesha laga bixinayo isla markaasina loo baahan yahay qof kasta inuu sharcigaasi u hoggaansamo marka dadku way diyaar garoobayaan sidoo kalena waxay isku dayayaan in ay taxadaraan isla markaasina cudurka COVID-19 awaamirta gobolku laga soo rogay ay la saanqaadaan maxamuud badanaa Soomaalidu way iska indhatiraan sharciyada dhinaca caafimaadka ah gaar ahaan inta lagu guda jiray xanuunkan COVID-19 qofkii u hoggaansami waaya amarka gudoomiyaha ee afka xiran waaya marka uu gelayo meel xiran ganacsi ha ahaato amaba guri ma ganaax baa jira maxaa tallaabo oo laga qaadaya aad iyo aad sida hadalka loo qoray inkastoo dadka lagula hadlayo luuqad dabacsan oo degan oo la leeyahay waxaan ognahay mas'uuliyadda dadku inay ilaalinayaan awaamirta raaci doonaan haddana waxaa jira in qofkii shaqsigii isagu u hoggaansami waayo amarkan la ganaaxayo lacag gaaraysa $100 oo lacagta Mareykanka sidoo kale dadka iyagu ganacsiyada ama goobaha iskale waxaa laga doonayaa in ay dadka u sheegaan inay awaamirta raacaan iyaga laftooduna ay ku dhaqmaan haddii marka taasi ay suuro geli weyso qofka ganacsada laftiisa waxaa la xukumayaa lacag gaaraysa $100 sidoo kalena waxaa laga yaabaa in xabsi loo dhaadhiciyo gaaraya ilaa iyo 90 maalmood ugu badnaan sidoo kale hay-adaha iyagu maamula taasi waa tii gobolka laakiin hay-adaha iyagu maamula hadba qofku ganacsigaasi uu leeyahay ayaa waxaa laga yaabaa iyaguna ugu badnaan inay ganaaxaan lacag gaaraysa $25,000 oo marka ganaaxu wuu jiraa waxaana aad muhiim u ah dadka ganacsanaya iyo weliba kuwa booqanayaba inay sharcigan aad u ilaaliyaan aad baa loo adkeeyay sharciyadii waayahay ciidii soonfur lama tukan gobolka Minnesota lagama tukan oo waa la kala xirnaa weli cabsidii baa jirtay lama furin gobolka iyo magaalooyinka Mareykanka qaarkood hadda ma jirtaa salaadii ciida goobo lagu tukanayo aad iyo aad Jacfar gobolka Minnesota masaajid aad u fara badan ayaa ku yaala waxaadna moodaa in lagu kala qaybsamay dukashada salaadan ciida masaajid fara badan waxa ay sheegeen in aanay isu soo bixi doonin la dukan doonin halka masaajidda qaar oo qaarkood aan la hadlay sida masaajidka Abubakar Sadiq ay ii sheegeen in ay meel bannaan ku dukan doonaan oo meelahan loo yaqaano parkiska oo bilicda magaalada iyo garoomada dadku inay ku ciyaaraan ama isugu soo baxaan loogu talagalay meelahaas inay ku dukan doonaan waliba laba meel oo kala duwan ay ku dukan doonaan sidoo kale masaajid kuwa la midihina sida ay sameyn doonaan waxa xusid mudan in maamulka masaajidka markaan la hadlay ii sheegeen inay isku dayi doonaan in ay dadka kala fogeeyaan isla markaasina ay qof kasta u sheegayaan oo imaanaya in uu soo qaato salli dadku kala fogaadaan marxabayntii iyo qalbiga la saarayana la joojiyo oo la yiraahdo
taa mar kale haynoo ahaato intii hab la isiisiin lahaa sheekada dib ha loo dhigo bannaanka la iska salaamo waxaadna moodaa in ay isku dayayaan inay dadkiina kala ilaaliyaan oo dadkii la kala fogeeyo isla markaasina salaadii ciidda la dukado sidaad carab ku dhufatay tii hore lagama dukan marka dad fara badan sida suuqan ka muuqanaysa iyo meelo kaleba diyaargarow xoogan baa jiro dadku ugu diyaargaroobayaan munaasabadda waxaan filayaa weliba inaan gacanta xataa la iska salaami doonin aad baad u mahadsan tahay maxamuud aad iyo aad haddii taa ay la suuro gelin karo kaasi waxa uu ahaa wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo isagoo ku sugan afaafta hore ee suuqa Karameel ee Soomaalida ee magaalada Minneapolis toos igu waramayay